السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. dad baa is weydiinaya nadaara barnaamijkii galabnimo xaguu geeyay dad badan baa ku xiran subax galab habeen baa sameeya marka raalli ahaada maanta xogaa yaro waan mashquulay meel baan aaday marka barnaamijkii galabka dib uu nooga dhacay marka waxaan siri galab lagaba gaaree kan caawa uun ku tur wixii cusub marka raalli ahaada barnaamijka caawa ayanu markaa galaynaa hawshiisa kii galabta marka uu naga baaqday marka hawsha halkaasaa kasii wadaynaa waa habeenimo sabdiya axad ay soo galayso taariikhduna waa 17 janaayo 2026 haddaba barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnay wasiirada arrimaha dibadda Turkiga iyo Saudi Arabia ayaa maanta ka sheekaystay arrinta Soomaaliya wixii ka dhacay waliba waqooyi bari waxay soo kale ka wada hadleen arrinta Yemen, Suudaan iyo hamiga Israa'iil ay ku doonayso inay ku soo degto badda cas oo ay kula wareegto Baabal Mandab sidii looga hortagi lahaa isbahaysiga Sacuudiga iyo sida looga shaqeynayo arrimo dhowr ah ayay ka wada hadleen haddaba anagu waxaan idin haynaa wixii ka soo baxay kulamadaas muhiimka ah waataay haddaba wada hadalkoodu wuxuu ku soo aadayaa baa la leeyahay xilli maanta safiirada Saudi Arabia iyo Turkiga iyo Suudaan ay hal diyaarad ku tageen magaalada Laascaanood iyadoo sidoo kale maalin ka horna uu tagay safiirka Djibouti haddaba fariin culus ayuu message ka dirayaa la leeyahay haddaba aan idin tuso sida loogu soo dhaweeyay safiirada Turkiga barnaamijka caawa aan ku soo gudbinayno waxa kamid ah hogaamiyaha Xisbullah oo caawa seefta galka kala baxay dawladda Lubnaan wuxuu ku yiri waa ina shaqada ka ayrisaan wasiirka arrimaha dibadda oo annaga afkana la soo galay sheeko waa xumaatay maxuu sameeyay wasiirka arrimaha dibadda Xisbullah hise wadanka maayada ka dawladda sheekooyin la yaab leh ayaan idin hayaa oo arrinka ku saabsan qaybta dambana waxaan idin kugu hayaa ninkii Trump ahaa oo markiisa u jawaabay odagii kale 80 jirka ahaa aayatullaahiga Iiraan saakay barnaamijku wuxuu ku soo qaadanay aayatullaahiga Iiraan oo mujrim ku tilmaamay Trump markiisa u jawaabay haddaba odayaashu way isku dhagan yihiin waa la shayaa qodobadaas aynu caawa barnaamijkeena ku kala dhigi doonaa inta aan ku jirno warar cusub haday soo kordhaan waan idin la soo barnaamijkeena habeenimo haddaba barnaamijka caawa waxaynu ku faaqidi doonaa qaybtiisan ugu horeysa xaaladda ka jirta gobolka geeska Afrika saameynta Carabta Turkiga Israa'iil waxa dhan ay ku leedahay wixii ka soo kordhay ayaynu arrinka ka hadlaynaa adduunyadii oo dhan baa isha nagu haysaad way intaynaan marka u gudbin arrin muhiim ah oo ay ka wada hadleen wasiirada arrimaha dibadda Turkiga iyo Saudi Arabia ayaa waxaan marka hore ku hormaraynaa maanta sidaad ogtihiin caleemasaarkii ayaa dhacay madaxweynaha maamulka waqooyi bari loogu qabtay magaalada Laascaanood caleemasaar waa laga wada qayb gali jiray maamul goboleedyada caleemasaarkoodii waxoodii iyo safiirada qaar way tagi jireen oo hawshu way iska socon jirtay kan marka waxaa leeyahay uu ka duwanaa kuwii hore hadda muxuu kaga duwanaa haddaba warbaahintii caalamka oo dhan ayaa isha ka hayso ka hadlaysa gaar ahaan kuwii Turkida Saudi Arabia wixii oo dhan way ka hadlayaan waxay leeyihiin maamulka laga dhisay waqooyiga Soomaaliya wuxuu muhiim u yahay midnimada wada jirka iyo wada noolaanshaha Soomaaliya dawladaha Turkiga iyo Saudi Arabia waxay ballan qaadeen inay maamulkaasi gaar ah u kaalmayn doonaan maamulka meesha laga dhisay waxay leeyihiin si gaar ah u kaalmaynayna waliba warar ayaa qaar ka mid ah warar jaraa'idka Turkiga waa qorayaan waxay leeyihiin waxa laga yaabaa Turkiga iyo Sacuudiga inay dekad ka sameeyaan laas qoray meesha la leeyahay saldhig militarina Turkigu uu area ka samaysto saldhig lagu tababaro ciidankana laga furo Laascaanood iyo nawaaxigeed sheeko marka waa meesha lagu dagaalamaya meesha caadib Israa'iil soo gashay hadii la yiri Carabti iyo Turkidi waaba wareereenba waa isku dhaxyaaceen wax walba waa qabanayna taagay
haddaba marka hore intaynaan safiirada baalki wasiirada aanan u gudbin wixii ay ku wada hadleen aan marka hore idin tuso sida maanta loo soo dhaweeyay safiirada dowladahaas. horta shalay waxaa tagay safiirka Djibouti oo la socday wafdigii reer Djibouti halkaa tagay ayaa safiirkoodii Djibouti waa tagay. safiirada marka Turkiga iyo Sacuudiga iyo Suudaan hal diyaarad ay ku yimaadeen, hal diyaarad ay soo qaateen. waa fariin kale. Turki ma awoodi waayeen inuu diyaarad soo kariisto kaligiis, Sacuudi ma awoodi waayeen, Suudaan haba tacbaan iska aatee diyaarad waa ku filad. laakiin message waa fariin la diraayo waayo. meesha aan ka soo deganay waa dhulkii Somaliland la lahaa oo aan diidanayn in Soomaaliya laga gooyo. maanta waa kan waa joognaaba ku baashaalayna. safiirkii meeshu ka hadlay, airportka markuu ka soo degay uu ka hadlay. waxaa kaloo meesha ka jiray sawir kaloo muujinayay in markaa saddexdoodu ay isla socdaan, isku hadafaan ka nahay waa arikan. marka waxyaabo badan ayaa marka meesha ka soo baxaan. arag muhiimadda ugu weyn waxay ahayd fariimaha ay safiiradu u direen wasaaradaha arrimaha dibadda. dee safiirku wixii uu arkay iyo wixii uu meesha ka reborgareeyay safaaraddu ay u gudbinaysaa dowladdu wasiir khaarijiyaha kow ay ka dhacaysaa baash. wasiir khaarijiyaashii Sacuudiga iyo Turkiga ayaa wixii maanta Soomaaliya ka dhacay loo gudbiyay. telefoonka la isku wareystay marka. arinta Soomaaliya ugu muhiimsaneeda leeyahay. Yemen iyo Suudaan arintoodina way ku jiraan, Israa'iil way ku jirtaa iyo faragelinteeda gobolka. isbahaysigii Turkiga iyo baalkii Turkiga uu ku soo biirayay Sacuudiga hogaaminayay Pakistan iyo iyaduna arrimaha laga wada hadlay. marka waxay u muuqdaan Sacuudiga iyo Turkigu inay aad isugu soo dhawaanayaan. waxa backup oo gadaal ka sii taagan Qatar iyaduna gadaal ayay ka sii taaganta. marka sheekadu marka halkaas ay maraysa. marka aan idin tuso wakaalada wararka ee Anadolu warbixinadii ugu dambeeyay sheekada ay ka qortay caawa. waxa caawa telefoonka ku wada hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga iyo dhigiisa Saudi Arabia. waxayna ka sheekaysteen oo ay ka wada hadleen isbedelada iyo xiisadaha ka jira gobolka ayay ka hadleen. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa telefoonka wuxuu kula xiriiray dhigiisa Sacuudiga Faisal bin Farhan. waxayna isla meel dhigeen oo ay ka wada hadleen arrimaha gobolka ka jira. haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegtay maanta sabti ah in markaa wasiiradu ay telefoonka isku wareysteen arrimo muhiim ahna ay ka wada hadleen oo mandiqada ku yaala. waxayna isweydaarsadeen xogaha la kala hayo iyo sida iskaashigu u sii xoojisan karo. arrimaha diiradda la saaray waxaa leeyahay waxaa ka mid ah Soomaaliya, Suudaan, Yemen, Suuriya iyo meelo kale oo markaa iskaashi xoog leh ay doonayaan inay dhinacyadan ka samaystaan. marka falanqayaashu marka waxay leeyihiin waxa maanta Soomaaliya ka dhacay ayaa muhiim ahay. safiiradoodii inay tageen dhul Somaliland la yiraahdo oo Ingiriisku gumaysan jiray oo hadda Israa'iil waa aqoonsanay inta tiri iyaguna ay tageen oo dawladii Soomaaliya oo dhan joogto ay halka ugu tageen. taas marka macluumaadka ugu weyn ee marka laga sheekaystay taas ee marka qaar ka mid ah warbaahinta ayaa marka sidaas aad uga hadlaya. qodobka marka muhiimka isaguna halkaas marka kaga gudbaynaa iyo wixii maanta Soomaaliya ka dhacay inkastoo aan la haynin faahfaahin dheeraad ah lama hayo inay arrimaha ka wada hadleen xogahaas ay muhiim ahaayeen kadib wixii kale oo ay isdhaheen ayaga marka wuxuu u taalaa. laakiin reportka la soo gudbiyay waa macluumaadka guud kaas ayaanu marka idin la wadaagnay. idinku maxay marka idin la tahay wixii maanta ka dhacay Laascaanood? maxay fariino diraysaa? maxay ka dhalan? maxay Sacuudiga iyo Turkigu ay sida interest ugu yahaayeen maanta inay Laascaanood safiiradooda tagaan oo markaa
ay ka qayb galaan munaasabad maamul cusub oo haddana ay ballan qaadeen maamulka inay la shaqaynayaan iyadoo madaxweynihii dowladda iyo ra-iisul wasaarihii iyo madaxdii oo dhan ay joogto. haddaba marka fikradihiina waa muhiim iyadana noo soo qoraan. qodobka halkaasaa kaga gudbaynaa. qodobka labaad ee barnaamijka waxaanu kaga hadlaynaa waxaa hadlay maanta hogaamiyaha xisbullah. dhowaan ayaa marka waxaa la yidhi bisha febraayo ilaa maarso bisha labaad ama ilaa bisha saddexaad ciidanka lubnaan way isdiyaariyeen. waxay rabaan deegaanada xuduudka israa'iil ku dhow xisbullahida joogto inay hubka ka dhigaan. xisbullahi markii la qiimeeyey oo dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin awoodda ciidanka lubnaan iyo awoodda xisbullah way ku laba jibaarataa ciidankan. sababtoo ah ciidanka lubnaan hub ay xisbullah haysato maba loo ogolaasay. dowladda lubnaan sibaa maraykan iyo israa'iil hubka uga ilaaliyaan ciidankooda. gantaalahan wiifaya iyo droniskan wax nagta looga saarayo iyo alaabtan ay xisbullah dagaalku intuu socday israa'iil nagta kaga dhigtay maba haystaanaa lagu leeyahay ciidanka lubnaan. marka sidee hubka uga dhigi karaa nimankan? marka sheekadan marka waxaa aada uga shaqeeyay ninka wasiirka arrimaha dibadda ayaa meelo badan ka hadlay. hubkaan ka dhigaynaa waa bilaabaynaa hubka dhigisti. maanta marka waa loo soo fariistay odagii waxaa soo fariistay lubnaaniiska ahaa ee hogaaminaya xisbullah. wax kale ma la dhihi. waxaa la cid hub naga dhigi karta meeshan ma joogto, hubna ma dhigayne. laakiin wiilkan gebgebta badan ee meel walba ka hadlaya horta waa in marka hore xilka laga qaaday. ayaga inay dowladda xukumaan camal ay u hadlayaan. wasiirka xilka laga qaaday leeyahay. nin wuxuu ku hadlayay maba qiimeynaya maxay dadka uu la hadlayaa waaye. marka sheeko waa la socota. marka tusoo wararkii ugu dambeeyey jiradda la yidhaahdo sharqul awsad waxay leedahay xisbullah weli waxay ku dhegan tahay hubkeeda inay haysanayso. hubka dhigis kasta oo lala yimaadana inay ka hortegayso. qaasim ninka madaxda u ah kooxdaas wuxuu weerar ku qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee lubnaan wuxuuna xukuumadda ka dalbaday in la bedelo ninkaas. waaba nin ashax xunug leey. macnaha tabartiisa maba yaqaani dadka huba laga dhigayo kan uu ka hadlayaa waaye. meesha lubnaan la leeyahay sideedaba waxaa ogaataan laba dowlad camala ka dhisan meesha. dowlad la yidhaahdo xisbullah iyo dowladda lubnaan. maraykanka iyo israa'iil iyo waxay la macaamilaan dowladda lubnaan. dowladdan kaleo meesha ka dhisanna iiraana la macaamisha. marka dowladdii lubnaan hubka ka dhiga kanka maxay hub ka dhigtaa lubnaan? ciidankeeda waxaaba ka awood badan oo ka hub badanaa lagu leeyahy nimankaana ka hub badane maxay marka wax taraan. marka sheekadaas iyaduna halkaasi baraysa. waa arkaynaa adduunyada wixii kasoo kordhaa. qaybta ugu dambaysa saakay barnaamijku waxaanu kusoo qaadanay aayatullaahi oo inta xanaaqay dhahaya ninkii Trump ahaa waa mujrim dhalay waaye. ninka dadkan dilay ka dambeeyey waa asaga. Trump sheekadii u soo maqlay. Trump hadday waa idin sheegay barnaamijka kii ka horreeyay in adduunka dhan laga sheegaa la iska jecel yahay. wax cid kastoo hadasha in loo jawaabaa la iska jecel yahay asaga. marka odagii u soo jawaabay waa 28 jir oo aan naxay waaye. waxay ka naxayaan bale. haddaba aan idin tuso habeenimo qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan marayna. qaybta waxaynu kaga hadlaynaa ninkii Trump ahaa ayaa u jawaabay aayatullah. saaka aayatullah wuxuu yidhi ninka mujrim waaye dambiilo waaye mana la cafinayo. ninka u haystaa Trump waxa ka dhacay wuxuu yidhi Iiraan dadkan lagu laayay waxaan dhan isaga ka mas'uuliyo mana cafinayno. odayga waa hanjabay moogta aayatullaahiga aayadiisu waa tuurtay. ninkii Trump sheekadii soo maqlay. Trump asaguna wuxuu taagaya waa in la bedelaa waxa meesha jooga dhan waa qashin. waa nimankuu shalay abaarayay. shalay barnaamijka kusoo qaatay waa ogtihiin dadka igu xiran aaday u ogyihiin. shalay barnaamijka kusoo qaatay wuxuu lahaa niman fiicana Iiraan xukuma warkayga yeeleen dadkii ay toogana u lahayn. hadda caawa muxuu leeyahay waa qashin waa in meesha laga bedelaa waxaan. aayatullaahigooda ugu weyn wuxuu leeyahay midkaasaaba ugu xul u leeyahay. waaba ninka ugu xul meesha
oo waxa dhagka mas'uul ku ah asagana soo dusha ka saara wixii ka dhacay Iran iyo dadkii lagu laayay haddaba markaan tusoo wararkii ugu dambeeyay telefishinka Sky News ayaa wuxuu leeyahay Trump wuxuu ku baaqay in hoggaan cusub loo sameeyo Iran haddaba warbixintiisu marka way sii socotay waxa leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu sheegay in la gaaray waqtigii hoggaan cusub loo sameyn lahaa Iran maadaama wuxuu sheegay ayatullaahiga Iran Ali Khamenei uu qaadan doono mas'uuliyadda burburka ku yimid wadankiisa oo weerar sagala odayna saaki Trump weeraro odayaashii marka madfici markay ka kala baqeen oo la kala cabsaday ayaa af kale isku weeraraya waa la iscaani waa la isu tirinaya intaan marka la kulmayno nabadgelyo